Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa 5 talaabo aad ku gaari karayso guusha iyo guusha waxay tahayba. Inta aanan bilaabin mowduuceena, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambarelkana furo si uu kuu soo gaaro video waliba aan soo gelino channelkan. Muuqaalkan waxaan ku kala dhigdhigaynaa guusha iyo guusha waxay tahayba iyo 5 waxyaabood aad ku gaari karayso guusha. Marka ugu horeyso aan isweydiino waa maxay guul? Su'aashan marka la isweydiiyo qofba si ayuu u qeexaa, waxaana taasi sababtay marxaladaha kala duwan ee dadku ku jiraan ayaa sababtay in loo qeexo siyaabo kala duwan guusha. Laakiin micnaha guushu wuxuu ku soo ururayaa qancinta naftaada, samaynta waxa aad jeceshahay inaad samayso, noqoshaha cidda aad jeceshahay inaad noqoto, u noolaanshaha sidaad rabto inaad u noolaato. Maxaa yeelay marka aad fiiriso naftaada waxaad tahay boqor, adiga ayaana leh go'aanka ah guusha iyo guuldarrada. Waxaan ikhtiyaar u leedahay naftaada. Dadka aynu la noolnahay waxay isku dayaan mar waliba in ay noo sheegaan sida aan u noolaan lahayn, balse su'aasha aan ku weydiinahay ayaa waxay tahay, haddii aad u noolaato raaligelinta dadka kale, adiga kumaa tahay? Guushu waa u shaqaynta sidii aad run uga dhigi lahayd riyooyinkaaga iyo ogaanshaha hibooyinka Ilaahay kuu deeqay. 5 talaabo haddaad qaaddo waxay kaaga caawinaysaa gaarista hadafkaaga iyo rumaynta riyooyinkaaga. 1. Aamin naftaada. Maxaa yeelay haddaad noqoto mid aan ku kalsoonayn naftiisa, waxaad ku tiirsanaan doontaa dadka kale, waad ku guuldaraysan doontaa gaarista go'aamada waxtarka leh oo noloshaada bedela. Ogow, haddaad naftaada aaminto, cid waliba ayaa ku aaminayso. 2. Noqo qof leh qorshe iyo hiigsi. Hana ahaado hiigsigaaga waxa aad jeceshahay in aad ku fiicnaato. Maxaan sidan kuu leeyahay? Dadka guulaystay waa dadka jecel waxa ay qabanayaan. Wayna adag tahay shaqo aad neceb tahay inaad heerka gaarto ama aad ka shaqayso. 3. Noqo qof wax akhriya. Mala socotaa in akhristayaashu ay yihiin kuwa hogaamiya maanta dunida. Haddaba si aad guul u gaarto, in badan wax akhri eena akhriso buugaagta xalka u ah dhibaatooyinka ku hortaagan. 4. Samayso saaxiibo wanaagsan oo leh han sare iyo qorshe, kuwaas oo ku dhiirigeliya xilliga aad wakhtiga la qaadanaysid mise aad la joogtid. Kana fogow dadka aan weli aanan fahmin waxa ay dunida u joogaan. Saamaynta uu leeyahay saaxiibku waa tan keentay in ay yiraahdaan culummada takhasuska u leh cilmu nafsiga, haddaad i tusto saaxiibka waxaan kuu sheegi doonaa ciddaad tahay. 5. La imow ficil oo u dhaqaaq dhanka guusha. Gaarista guushu waxay ka shidaal qaadataa guuldarrada. Astaantiisa waa inaadan quusan, aad isku daydo mar labaad iyo mar saddexaad. Soo dhaweey guuldarrada si aad u gaarto guusha. Guushu waa tan kaliya sare kuu qaadayso. Fadlan haddii uu ku cajab geliyo fiidiyogan, like saar, commentina ka soo bixi si uu inoogu noqdo dhiirigelin. Soomaaliyeed horumar wacan.